السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيرتي دمانتين وان سلامين maanta casharkeena waxaan ku qaadanaa saddex application oo macna u shaqeynaya launcher ahaan oo application launcher ah oo runtii ka caawin doona hadii mobilkaaga muuqaalka guud ama featureka menu-giisa aanad ku qanacsanayn in aad u samayn karto muuqaal ka wacan muuqaalkii aad haysatay markaas casharkeena ayaynu iska bilaabanaa application hore oo saddex application markaas waxaad ka soo degsanaysaa Play Store aad ka soo degsanaysaa Play Store markaad furto halkan ugu sareyso waxaad ku qortaa n launcher aad ku qoraysaa application waa application ka yar oo sareeya waa application n launcher node ayaa la yiraahdaa application ka marka la soo degto waxaad u baahanaysaa application kale oo sugan ka caawinaya oo icons ama application ka dhigaya mid qaab aad u qurux badan markaas application ka labada waxa la still icon ayaa la still icon back application ka ugu horeeya still icon back ayaa la qaab aad soo degsanaysaa password halkan ayaad ka download oranaysaa waa application ka yar download ayuun baad oranaysaa qaabkaas iyo muuqaalkaas ayuu leeyahay download ayuun baad oranaysaa markaas waan ka soo baxayaa waxaan tusiyaa qaabka ay lagu shaqeeyo markaas markaad in launcherka soo degsato waa in launcherka home-ka kuu soo galo aad tiraahdo always ama just kulbakii aad doonayso inaad ifka launcherka dhigta inaad kulba ka bedesho qaabkan oo kale ay ku soo baxay aniga wax ka bedela markaas application-kan marka ugu horeysa asmeynaysa in aad xogta marka ugu horeysa waxaad tagaysaa markaad application-ka soo dejiso inaad settings ka tagaysaa setting launcher-ka ma setting caadiga setting launcher-ka ayaa tagaysaa kadib waxaad tagaysaa dock waxaad ku siinaysaa dock style kadibna halkan aad color-ka ka bedelaysaa walba color-ka aad doonayso halkan color noqoto bas kalkeena qafiif inuu yahay si baan picture bas wada qaabkan dooro ka soo noqo waxaan abdiro aad ku abdiro markaa kan location-ka color-ka doonto aad ka dhigaysaa ka dhig icon size-ka qaabka kulba intaad doonto ka dhigtaa yacni boqolkiiba icon ku kaaga yaraanaya ama application-ku oo aad u yaraanaya kaas markaad tagayso shadow-gana haddaad doonto sax waad saaraysaa level color-kana kaa doonayso ayaad ka dhigaysaa insha allah intaad dhamayso waxaad mar ku noqonaysaa in aad tagto oo halkan ugu muhiimsan look and feel wabarta ugu muhiimsan ka bedelan icon kadib icon back still ka doonaysaa kaas local ayaad ka doonaysaa markaas application-keena la soo deganay ahaa still icon ayaynu tegaynaa waa halka uu muhiimada ugu weyn ka saaran markaas wuxuu ka dhigayaa qaabkan ayuu ka dhigay apply ayaan odhanay inuu icon-ka inooga dhigo mid qurux badan marka kadib toos ayaanu ka soo baxaynaa waxaad u jeedaa in uu halkan noqotay casaan yani xaggan hoose ay noqotay casaan oo maxaan idhahdaa qaabka ka bedela qaabkii hore uu ka dhigay mid qurux badan soo maxaa weli wareegayaa apply bas qadarka haddaba si ay naga bedelo menu-ga oo arkan application-kii isu bedelo haddii aad maxaa idhahdaa menu-gan la taabanayo in aad ka saarto ood meesha application soo dhigto waad heli kartaa waad xijinaysaa haddii kaad isaga saa jaalistay delete ayaad odhanaysaa taas waxaa kaloo ku fiican yahay wadilasa maanta halkan ayaad ku dhufanaysaa mid kamid ah soo dooro markii aad haysta
وارتا قاب وصوب حي مركز إن شاء الله أنا أكون قناعدين أيام ملانية application كصدحها اسمها جوجل لانتر أما جوجل نيو لانتر هكذا يتسجن سوق راح تجلس جوجل كي تجلس واحد فرصة جوجل نيو لانتر قدام انتر اياد اورانتا بس halkan ayaad ka degsanaysaa Google New Launcher insha Allah markaas halkan ayaad ka download garanaysaa waa kan ayaad ka degsanaysaa insha Allah bas isagana qaabka iyo soo baxay hadaan soo sugan waa Launcher markaas wakaas isagana ku dhigto qaabka soo baxayso degdeg badan sugan ilaa xad bas isagana waxaad sameynaysaa in halkan ay dhigto oo ka saarto tayar ka saarto isagana isla qaabkii garanaysaa markaas casharkeen intaas ay ku koobay ilaa channelka inaad subscribe iyo like saarto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.